Manjidaan iyo Kagor waa laba qabiil oo aad caan ugu ahaa xirfadda dagaalka, waxaana ka dhexeeyay dagaal in badan socday iyo cadaawad soo raagtay. Labadan qabiil oo asal ahaan walaalo ahaa ayaa waxay hareeraha ka deganaayeen boqortooyo aad u ballaaran oo Aasiya in badan oo ka mid ah ka talinaysay. Kagor iyo Manjidaan waxaa la dhex dhigay heshiis dagaal joojin ah. Labada dhinacna way qaateen heshiiska, laakiin wax xiriir ah iyo wada noolaansho ah kama dhaxaynin. Cadaawaddiina waxay ka buuxday qalbiyadooda. Carruurta labada qabiil waxaa loo sheegi jiray inay bartaan xirfadaha kala duwan ee dagaalka si ay iskaga celiyaan cadowgooda, waxaana midba midka kale ku fikiri jireen in mar uun dagaal dhici doono. Waqti walba waxay ku jireen heegan. Kulankii ugu horreeyay ee aan dagaal ahayn ayaa wuxuu dhex maray Kinozgi oo uu awoow u yahay hogaamiyaha qabiilka Manjidaan iyo Oboro oo ay ayeeyo u tahay boqoradda qabiilka Kagore. Wiilkan iyo gabadhan waxay ahaayeen kuwo qalbi wanaagsan, waxayna isku barteen webi u dhexeeya meesha ay degaan labada qabiil oo ay subaxii iyo aroortii imaan jireen. Kinozgi iyo Kagore waxay isweydiiyeen waxa colaadda dhex dhigay labada qabiil ee walaalaha ah, deriskana ah, waxayna ku hamiyeen sidii ay nabad ugu horseedi lahaayeen. Waxayna joogteeyeen kulankoodii ilaa markii dambe jacayl ka dhex dhasho. Kagore iyadu jacaylka waxay u aragtay khayaali iyo riyo, waayo waxay aaminsaneyd in labada qabiil ayna guur wadaagi karin cadaawadda dhex taalla awgeed. Laakiin Kinozgi wuxuu aaminsanaa in jacaylkooda uu horseedi karo nabad labada dhinac ah. Boqorkii haystay dhulweynaha Aasiya ayaa waxaa cabsi gelisay heshiiska dagaal joojinta ah ee u dhexeeya Manjidaan iyo Kagore, wuxuuna qabtay bandhig faneed qabiil walba ku soo bandhigayo xirfadooda dagaal, waxaana meesha wacdaro ka dhigay Kagore iyo Manjidaan. Boqorkii ayaa wuxuu amray in labada qabiil ay iska soo saaraan min 5 qof oo dagaalyahano ah, soona aadaan xarunta boqortooyada. Inta ay dhexda ku soo jiraanna isa soo dagaalaan, oo qabiilkii nabad ku soo gaadha xarunta boqortooyada ayaa noqon doona kuwo la siiyo karaamo iyo hub fara badan, dhalinyartoodana si fiican loo qalabayn doono, qabiilka kalena ay u noqon doonaan addoon. Labada hogaamiye ee qabiilada Manjidaan iyo Kagore ayaa waxay qorteen min 5 qof, waxayna hogaamiyaal uga dhigeen Oboro iyo Kinozgi, waxaana lagu amray in socdaalkoodu berri bilaabanayo. Kinozgi iyo Oboro qasab ayay ku tahay safarkan, waxaana ku jirta sharafta qabiiladooda oo labada waalid kalsooni ayay ku qabaan, mas'uuliyaddiina way qaadeen. Kinozgi wuxuu warqad u diray Oboro isagoo u sheegay in uu baxayo laakiin uuna dagaalami doonin, sababta uu u socdana ay tahay in uu boqorka soo weydiiyo sababta uu iskugu dirayo labadan qabiil. Oboro iyadana bixitaan ayay isku diyaarisay, laakiin isku darka labada kooxood waa 10, qabiil walbana waxaa ka socda 5 qof, waxaana xarunta boqortooyada aada 4 waddo. Socdaalkii ayaa bilowday. Markii laga soo tago Kinozgi iyo Oboro, shakhsiyaadkii kale waxay diyaar u yihiin dagaal, waxayna aaminsan yihiin in dagaalku ku jiro noloshooda. Markii la marayo xarunta boqortooyada meel u dhow, waxaa nabad ku yimid Kinozgi oo ahaa qofka ugu dagaalyahansan, iyo Kagore oo ku xeeldheera sixirka, dadkana ku dili jirtay indhaheeda oo ay mar ku fiirso. Waxaana labadooda ka dhaxaysay saan soo sheegnay jacayl, waxayna ka sinaayeen in labada qabiil laga saaro cadaawadda oo ay heshiiyaan. Kinozgi wuxuu ka codsaday Oboro in ay disho labada qabiilna ka saarto colaadda soo jireynta ah, wayna samaysay iyadoo aad uga xun in gacanteeda ku disho qofkii ay jecleed. Oboro ayaa timid xaruntii boqorka oo boqorkii iyo mas'uuliyiintii boqortooyada ugu sarreysay ee fadhiyaan, laakiin boqorkii markuu arkay in ay tahay Oboro wuxuu fadhiistay meel Oboro ka qarsoon maadaama ay dadka ku disho fiiritaan, waxayna ka warbixisay qaabkii ay halkan ku timid iyo sidii ay ku dhinteen 9kii kale. Waxayna boqorka ka codsatay in ay rabto nabadeen iyo in hubka laga dhigo labada qabiil, wuxuuna boqorka ku yidhi sideen kugu aaminaa adoo dilka u adeegsada indhahaaga. Waxayna samaysay Oboro arrin aad iyo aad looga yaabay, dadkii meesha joogtana ka wada naxisay. Kadib markay indhaheeda iska soo saartay, boqorkii ayaa naxay, hal marna soo booday, wuxuuna markiiba codsaday in ay dhaqaatiir si degdega meesha ugu yimaadaan. Oboro waxay iska diiday hubkii iyo in la qalabeeyo qabiilkeeda, waxayna labada qabiil ku hogaamisay nabad iyo in ay ku wada noolaadaan deegaanka iyagoo isdhexgalaya, wax walbana wadaagaya.